magacaygu waa Maxamed Cumar oo ku magac dheer wax dugsiya waana ku dhawahay barnaamijka maalinka ugu horreysay kamarada soo hor fadhiisto horta wallahi waxa ilaahay wax caadiya oo iska caadiya ilaahay waxayna ahayd 2018 bay ahayd bilowgiisii baan malaynayaa alwila dhexdiisii meelaha maalin normaal ah bay ahayd intii aan jilinka ku jiray maalinka ugu horreysay cadhooday way jirtaa laakiin ayanta ma xasuusto balse laakiin waxaan ka xanaaqay yani anu lama haysanin waxa jirta marka jilinka ku jirto ama saxaafad ku jirto waxyaabo waxa jira munaafaqad la yiraahdo ama mixnad ay jirta markaas waxyaabahaas oo anu aanan hore u aqoonin ayaan arkay qof dhan oo soo taagan oo waxba sameyn oo laga sameeyo laga daba baxay markaas aan xasuustaan run ahaantii saayid xanaaqa intii aan shaqada ku jiray uu jira qof aan yani ka xumaaday aan go'aan ka qaatay inaanan la hadal balse laakiin kulay muddo markaan ka aamusnaa iskala hadlay waayo caloosha wax kuma haysan karo والله shaqada jilinku iska fan weeyaan adoo yani iska waxtay qof walba de horta wuxuu ka aaminsan yahay balse laakiin aanu madadaalo ma ka aaminsanahay كل shaqooyin badan oo kala wajiraan balse laakiin waxaan tilmaamoon iraahdo waxay kaga duwan tahay shaqooyinka kale ma garanayo kulli madadaalo iyo inaad dadka mashquulsan mooyaane wax kale kaga duwan tahay ma garanayo kulli waxaan siinayaa qofku hadduu go'aan soo gaadho uu ku soo go'aansaday inuu wax jilo talada aan siinaya waxay tahay caqabado badan baa ka hor imanaya dad badan wajiyo badan oo ay la kulmaysaa qaar wanaagsan iyo qaar xun bale waxyaabo badan oo hore u arag iyo waxyaabo badan oo aad filaynin ay arki doontaa dulqaadkeeda inaad yeelato iskana dhaga tirto noqoto qof hadafkiisa kaliya u socda والله وحير مرة وين كجارو هم يجي نصي معها إنه كشرو أرت فيلمكي يقعد كأحرها فيلمكي لقويها وين بوها كستو فيلم كاس لما أنتي سو مسكها فيلم سامين له haddana markii ugu adkayd waxay ahayd markii la igu yiri ceelka ku dhac wallahi horta kulli waa hawl adag intaas oo dadabaad isku imaanaysaan meel isugu imaanaysaan intaas oo wajibaad la kulmaysaa intaas oo wajibaad rabtaa inaad qanciso waxaa jira dad aan ku bogin oo hawada ka nacib waxa jira dad iska ka jecel labaduba way jirtaa sidoo kale waxa jira dad aad iskhilaafaysan intaas oo dadka meel wada joogtaana waxyaabo badan baa ka hor imanaya horta waa hawl adag baan oran lahaa
dadka igu xidhan waxaan leeyahay dhammaantiin aad iyo aad baan idin jecelahay mar walba aad baan idin jecelahay inaan halkaa maanta aan fadhiyana idinka darsi ma ku gaadhin waxaan idin hayaa mar walba sharaf madaxa korkiisa ay saarantay horta caqabad igala kulanto weyn ma jirto balse laakiin qof kasta oo ama jilin ha galo ama social media ku jiro familkiisa caqabad buu kala kulmi karaa caqabado badan oo jirta familkaad kala kulmaysaa iyagoo familkeenu imika inkastoo hadeer dee la soo ilbaxay oo maxay ahayd soolay social media soo farabatay balse laakiin waqtigaan ugaan social media kasoo beeray wax laga aaminsanaa waxde adigu inanta maanta social media gasho kale inay inan ka dhimatay familkooda baa laga aaminsanaa ama waxyaabo kale ku jirta marka caqabadaha ugu badan waxay kala kulmeen familka oo in la ii diido in la iga hor istaago heer xataa markii dambe anoo filim wada la damcay in layga joojiyo anoo balse laakiin beentigu weynada sheegayahay anoo ku jira oo wada inaan dhahdo ma tago aan maxay tahay haddana farsamo kale ku wadan jiray waxaan si khaas u salaamayaa hooyaday macaan ilaahay ha ii daayo waxaa kaloo si khaas u salaamayaa qof aanan magaciisa barta ka sheegi doonin oo qofka